imikana Hargeysa waxa maalmahan baraha bulshada si weyn loogu hadalhayay wiil dhalinyaro ah oo magaalada Hargeysa hal mar ku guursaday laba gabdhood wiilkan oo lagu magacaabo Bashiir Saxardiid ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay arintani isla markaana uu doorbiday in hal mar uu wada guursado labadan gabdhood haddaba siday ugu suura gashay in wiilkani uu hal mar laba gabdhood wada guursado su'aashaasi iyo su'aalo kale ayaa waxa weydiisay wariyaha BBC-da Suhaybo Maxamed Badqas wax gaaro carqalad ugu dhalisay ma jirto laakiin aan maskaxda ka keenay labada dumar guursado bacdayna ku guuleystay bacdayna waan la qalgalay qaabkee uga dhaadhicisay in aad hal jeer wada guursato alaasiga degan ma wada dhicin jiray markay soo galeen bacdiga xaliigan oo noqolay markii hore ee aad haasawaha bilaabayseen ma is ogaayeen labada gabdhood way sugay ilaa iyo imisa sano ama imisa bilood ayaad wada haasaweyseen adoo ilaa 8 bilood wada haasaan marka maadaama aad tiri way is ogaayeen ma jirtaa wax aad ku yiraahdeen marka aad labada gabdhood u sheegtay in mid kale aad haasaawinayso waan soo sheegay bacdi waan gurigan ana isku geen jiray oo gurigan wada barsan jirnay way soo ogaayeen oo isku guri ayaad ku shukaansan jirtay gabdhaha laakiin waxa isweydiinaya aniga shakhsi ahaan dabcan dad kalena isweydiinayaan waxa ay tahay maxaad u sheegi jirtay marka aad hor fadhido labada la joogan labada ku jiray iyaga ma aad si fiican aad iyo aad ay u qanacsanaayeen daadabada way laayeen daana on jala marka ku intii labada marka sidee uga dhaadhicisa haddana arooska in uu hal maalin dhaco ana ka dhiciya ka dhaadhiciyay marka ogolaaday iyaguna yeelay ma jirtaa wax caqabad ah oo aad kala kulantay marka inta aad ku jirtay haasawaha iyo ma sheegi marka hadda isku guri ayayba gabdhihii ku nool yihiin guriga ku nool bal waxaad iiga horantaa waalidiintaada iyo waalidiinta gabdhaha arrintan maxay ka yiraahdeen iyaga hore uguma sheegin ilaa intii hawsha ay dhamaanaysay maxaan ku dhahday guriga keenay hore uguma sheegin markaas ma ogaadeen maxaad kala kulantay marka waa si fiican oo ayaan arooskayga loo qabanqaabiyey dhaqaale ahaan bal ka waran sidaan arkay baraha bulshada sawirkaada waxaa tahay inan yar marka maxaa mili kartaa sababtoo waa waxa ugu horeeya ay ka fikiraan ragga qaarkood dhaqaale ahaan waa markaan siyaasay danaha waxaan ugu galay aan xamili karaa marka maxay kaa tahay waa la gartay ninka in uu guursado mid kalena uu ka daba keeno laakiin in labadooda hal mar aad wada guursato dadku waxay isweydiinayaan sababta maxay tahay oo dad qaar waxay ku fikrayaan muxuu mid inuu guursado midda kale uga daba keeni waaye waxa uga daba keeni waaye marka midka daba keento waxa imanaya hinaasa imanaya mushkilad badan baa imanaysa gabadha hore si kacdan baa dhacaysa marka hadalku waxa ku yaraaday waxaan isku mar kala adeegsanaa isku wanaagsan waxaa jira in ragga qaarkood ee xaslayaasha ah dabcan inay ka baqaan in ay ku daraan xitaa mid kale iska daayo in ay hal mar wada guursadaan marka taa maxaa ka leedahay waxaan leeyahay ku dhiirada guurka ka baqanine أنا رجع هذا صاريا أنت أود ما لا أنت أنا أود ما جرت لكن تار رجع ياد بفراك بحنيسة صوما marka adiga hadda sida aad sheegtay gabdhahan waxay u guursatay mid kale in adigoo hinaasaha ka cararaysid laakiin sida caadada ahayd ragga Soomaalida ay ku fikraan oo caruurta badi ahayd ma aha taasna kale ku jirta iyadana caruurta badi iyadana ku jirta